حل كان كحصوصي حلي سنة شكل ركبتنا أوريو اللي هذا حمان ويجه هالكيد حكته واي نجح والله يلقى كنا البي بي سي كنا رجستنا ومر إيه كتابنا أيام كجه اللي جودهان قضية ده قارهان أنا قال له صافص أو أن كل مرة يقول يقول البي بي سي ده وحن سألنا لمركها سيد الوح اللي يو كجه اللي شيء كذا لفت ده إن المان كنا مرة بعض الناس يقول كل كفاح خصوصا ضد كان حتى كشيء كين إنسان ضد لهب صعود مصيبة هذا يكون عظيم وين كيف فكرتها قوار من مصيبة يكون عظيم مشكلة قوي يا كدم بي وأن كان قاري سيد صلى قبل حكرا حقوق كل عايز ممد أبداء ميان شيل كان مرة بيواني رعفان لهاني كصوبحين هذا يقول قلاتني تين هذا يهرد أنو تاجنا وحن شعلان لها إلى النقطان يدوك قرصورة ياشي أنا قلنا يقول قلاتني هذه النقطة قريقان كي يجري حير إلى عليه dadka yu xidhanyiina waa qabaa'ilka ee dabadna xukuntaan cidii gardaran waxaanu nahay walaal adigu aabaha doonta bay noo bixiyo saddex magac baan u hayaa taariikhda dalkeenan waa Soomaaliland meesha mala laga wado kabaynta badan wax afka Soomaaliya ku hadlaaye saddex magac oo muhiim ah ayuu malagu taariikhdeena ka soo anbaqaadaya wala fogaato liyo biyamal birmal iyo Soomaal ereyga maal waa garanaysaan bay la tahay وكن ولا شها وحياة هذا اللي قلته سؤال معناه يدو حويان حوله برمال نبمر بالعدود يشاء ويروحوا جيستايه أيها واو حسبضي وابو حسبضي لحلكي أبيه يلحلكي ولا له يتسدكي سيوح رنبو حرك وضع شفتي صوت كموت شوقين تاسو كليه وحسيه لي ولبا خلومر حق فرسمضة ووحو أبو ري فردكو طلش أما إنه تولى أبوه تولد وحكو أبوه أنت فرسمه وحاله هو هلاي أقون يعدد با إنه بيرتشيله وحسوسه هدو يمادوه قيبين تيبا لحري ده حق علمك ولا يجي علمك دقالة ولا يجي قوم بدني دقالة قيب سجي أيالك على صدر صدي سيدي مركو هرب الحكي الواقع بواوي برمال وبرتي هلاي وسيدا هذا الدولة هواوين بغل يسال مريكا كوكلا إيو إنجليز إيو أي نود يديهين هوبك هواوين إنه صوغ قلان قعنتين قعنتو هذا مركا كتشرا ناي تاي حلال قعنت الدولة هو سمركا الدولة الحس صوغ قلان ناي تاي دنبي أيا برمال ولكن سؤمال وكداري هوبك مركانو يوكلاركاها أبضنا ورنكا توريدا إيو أمليدا انت وحكو هاي قعنت برمال وكليا وحلوغو أقولات غير سؤمال مديدا مضع محاركا يوحي لمدا arintaasi waxa ay ahayd ciil iyo cabasho ay tirsanayeen reer Soomaal waxa inta u dheeraa markay bir ka soo doontaan haday gudinta tahay oo kale waxay lahayd sharciyo marka aad u qalabsan waan ka baqay ragin dhiigu kala hadda uga sheekay waa sheekada dhamaatay laakiin waxay ahayd taasi gudinta waxa la soo raacin jiray inantaas oo la keenayo madaxa farsamada uu iska leeyahay ayaan darrada ma qabay hadana marka gudinta la dhameeyo ayuu inantii diraya laba sanadood kadibna waxay noqonaysaa haday ilmo dhasho isagoo socda in loo keeno reer birmaal waxay ahayd dulmi iyo cadaaj ay awiyashay taliyeen waxa ka daran ka awiyashin go'aanka ku gaadhay waxa dhacday markaa ciil waxay ku qabeen dadkaas iyo calaacalkaas qabeen ba maanta baa la tashado waxa la waa nimanka reer birmaal nafta in loo keenay waxaanu kuma jiri karre waan soo gaabinaya sheekada aynu iska qabano lagax la kiistay mudacyadii oo la urursaday maxaadadii uu isu geystay mala gudma laga xaday iyo tuuriye qaarkood wixii baa lagu soo weeraray tuulooyinkii burbur civilization baa dhacay dulmigu ma raagay markiiba reer birbaal baa beerka lagaga fadhiistay waxa se la gaaray tolo ay ka taliyeen rag aqoon-yahana ah laakiin dulmi markaa ka talinay waxa la yiri aynu lumino raadka wada dhalasho ee inaga iyo reer birmaal yaan dib loo aqoonsanin inaynu wax isu ahayn maxaynu la habaalay kumaal subax uu cirka dubihiisa kala soo booday waxba inoo ma shaydaan baa u abtiya Soomaaliba ma ahay wasab iyo wax la mid oo ma kasta laga dhargiyay oo laga yaabo qaarkiina maankooda inay hadda ku jirtaan waxa la yiri yaa laba dambe isu imanin oo aan tala dambe yeelanay farsamo kama maaranne ha loo kala qaybiyo jilbadeed xukunka noocaasa ayaa reer birmaal ku dhacay raafaankiisiba u fadhidaan hadda رجينا هالك فرليها والرعفان كيس وعو فرليها رعفان كيسي ما تهيأ بس ماشي تلا واحد تهي والحكم كاسي هاد مولعي رجع مين نشيل كوكو إلابين
ميانا هين ما تين ندبو إيقنو سامحات ميانا يقل من كيس كود ندبلو إيقا صوماها والسلام عليكم